qabanqaabadii ugu dambeysay ee xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Ciidanka Jubbaland ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo, waxaana xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. Mas'uuliyiin kala duwan oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa xaqiijiyay in caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe lagu wado inuu dhaco 11 bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Jimcada ah ee nagu soo food leh. Waxaa lagu wadaa in ay xafladan caleemasaarka lagu caleemasaarayo Axmed Madoobe ay ka qayb galaan siyaasiyiin kala duwan, xildhibaano ka tirsan labada gole iyo marti sharaf ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada. 23 bishii hore ayay baaqatay xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe sababo la xiriira dowladda federaalka Soomaaliya oo xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha aada magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. taasina waxay fududeysay in maamulka Jubbaland ay soo iibsadaan diyaarad ay si gaar ah u leeyihiin oo ay ugu talagaleen inay ku daabulaan wafuudda kala duwan ay ka qayb galaysa caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha 4 sano ee soo socota hogaamin doona maamulka Jubbaland.